السلام عليكم ورحمة الله كسو دوادا فيديو عصب وانيقو نسرية maanta waxaa suubinaynaa doorsho aad iyo aad u fiican una fudeed badan una macaan badan insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin marka hawsha waxaan ka bilaabayaa waxa waaye ukunta 3 xabo ukun waxaan ku dhex jabinayaa mashiinka bacdeen waxaan ku darsanayaa sokorta insha Allah sokorta waxaan isticmaalayaa 150 gram oo sokor ah doorshadan run ahaantii waxa waaye mid adduunka ugu fududeed ana hadii la fiiriyo hada fiidiyogan aad duubay xataa 8 daqiiqo inay ugu qaadaneen doorshadas marka aad diyaarinayo normal ahaan marka saas darteed waxaan u jeclaystay inaan la qabsado maxaa yeelay sidii u fududahay iyo sidii u macdahay isma lahan insha Allah mashiinka markii aan sida u daaray waxaan si diyaarsanayaa leebitada waxaan jeclaystay inaan idin tusiyo maxaa yeelay anaga xageena waxa laga isticmaalaa leebitada doorshada leebito birdoolshi markaysa waxa waaye bakinka waa ku bedel kartaa hadii aan leebito ku oolin marka leebitooda waa shaqshaqaya aniga maxaa yeelay waxaan jeclahay wixii bowdar inaan shaqshaqo intaan sokorta ka heenin burka ku shaqshaqana burka waa soo shaqshaqada marka hore waa soo diyaarsada okay markii aan sidaan hadda yani ukunta iyo sokorta isku garaacmeen 4 daqiiqo camal waxa ku darayaa qoyaanka macnaha saliida ana saliida isticmaalay waxa waaye saliid cadeeda marka waxaan ku darayaa 125 oo saliid ah ka bacdina waxaan ku darayaa 100 gram oo caano ah ani garaamada isticmaalaya maxaa yeelay garaamadka ani fudud ana ka helaa marka doorshinka suubinayo marka waxaan kale ku darayaa yogurt ani yogurtka isticmaalaa waxa waa mid fruit leh adiga waxa isticmaali kartaa hadii aad jeceshahay mid kacabka ku yaalo ama mid alaala midka ah haysato yogurtka sidaan ugu darayaa alaabta kale inta oo mashiinka ku jirto okay yogurtkii iyo ukuntii sokortii wixii dhan markay isku garaacmeen waxaan hadda qaandaba mar ugu darayaa burka iyo leebitada ani waxaan jeclahay waxa ina kisba mar aan ku daro cajiinka markii aan qasaayo kaleenta ama dooshada aad diyaarinayo hadii kaleenta ukunta aad garaacday iyo alaabta aad diyaariso ku fuuray hadii aad burka hal mar ku gadiso macnaha bush dooshada ma ku naqnayso marka hal qaandaba mar ku darayaa ilaa aan ka dhameeyo burka iyo leebitada insha Allah nel frattempo waxay talyaani ku dhahaan inta macnaha cajiinkii garaacmaya hadirtaan xoogaa meeshan iska kala toosinaya ka bacdi waxa idin toosinaya kakao ganiga isticmaalaya kakao waxa waa shukulaato bowdar camal ah laakiin bila sokor ah ani midka isticmaalaya bila sokor waaye hadii adiga haysato kaleenta midka sokorta leh sokorta aan marka hore ku darto ukunta xoogaa ka dhimaysa inta kakao aan ku darto oo sokora ka qaad reebisa macnaha ana hadda waxaan soo diyaarsaday 2 qaando oo waxa ah kakao shaqshaqan ka bacdi maxaa yeelay dooshada 2 kalar ka dhigayna Soomaaliya okay cajiinka xoogaa markoo sida u garaacmay bur hadoo yani weelka dhinaciisa iyo dhagan iyo kaleenta waa ka nadiifinayaa si yani hawsheeda si fiican ay ugu qabato ay ugu qabsoonto sorry markaan waxa rabaa cajiinka ina yani 2 qayb u dhigo qaybna cad waaye qaybna kakaaga ku darayaa al shukulaato ka dhigaya marka way fududahay run ahaantii hawsha markii la qabanayo markii oo aad rabto waxa ina boobsiiso kaleenta 5 daqiiqo ama ka yar ku qaadanaysa marka 2 qayb markii aan u dhigay qaybtan oo mashiinka waxaan ku darayaa kakaaga ka bacdi waa ku shidayaa si oo sheego u garaacmo 2 daqiiqo camal dib malahan hatta qaandada waa ku waxay kartaa laakiin maadaama oo yani jaakan oo saqi ahay kale ku dhameystira hawsha ma fahantay laakiin hadii aad qaando soo qaadato kaleento laba mar ku wareejiso
wuu ku qasmayaa maxaa yeelay kaakaagu wuu shaqshaqan yahay waxaan wax u shaqshaqayo kaleente ciyoobay qasmayaan marka burka ama kaakaawga shaqshaqada iyo leebitada iyo ciyoobay macnaha si fiican u qasmayaan bilaa dhib meelahaygaas kana nadiifsanayaa markaasaytii inta hawshay sii socoto waxaa iska kala toosinayaa okay qaybtan inaad jara marbin maxaa yeelay waxaa rabaa inaad aragtiin sida u fududahay oo arkaysiin hawsha inay run ahaantii doorsho markii la suubinayo aynu u baahnayn waqti badan haddana markii aniga jimcaha ay soo galayso kaleente maalinta khamiista galabteeda waxaan jeclaa doorshada inaan diyaariyo si yacni loogu quraacdo maalinta jimcaha haddana weekendiga soo galayo ciyaalka guriga joogaan casri ahaan cunaan aniga sidaas ahay meeshaan waxaa idin tusinayaa waxa waaye weelka doorshada foornada ku gelin lahay marka hore waxaa soo mariyay saliid iyo bur si aanu dhagin macnaha si aan doorshada ugu dhagin qaybta hore waxaan ku shubay marka hore qaybta cad isla markii waxaan dhinaca kale ku shubayaa si intaan iga wasaqoobin ka hor qaybta shukulaatada jaas sidaas waa ku gali kartiin foornada macnaha markay labada dhinac ku shubtiin kabacdi hadhow waxa ka soo baxaayo doorsho haafna cad haafna shukulaato laakiin hadirta aniga xoogaa yar oo waxaan gelinayaa qaybta cada waxaan dhex gelinayaa qayb shukulaato qaybta shukulaatada waxaan soo gelinayaa qaybta cadaanka xoogaa si ay isku qasmaan nadaafada meesha ka socoto okay waxa soo qaatay fargeeto markaysaan si fudeed waaye haddii aad xoogaa creative tahay oo iga sharaxaad badan too kaleento way ku fiican tahay laakiin aniga sidana ku wadayaa kabacdi run ahaantii sidoo ku soo baxaysana si oo laga xumaa kara maahin maxaa yeelay anigu waa jeclahay waxyaabaha marka sida fudeedka loo suubiyo waxa ka soo baxo alaab oo aan caadi ahaynin marka waxaa idin tusinayaa kor idinka tusinayaa laakiin marka uu hadhow ka soo baxda foornada ka sii qurux badan tahay waxaan gelinayaa foornada 180 gram 33 daqiiqo camal aan ku karinayaa waatana doorshadii oo diyaar oo arkaysaan sidii u gaduudatay oo qurux badan tahay masha Allah kaamirada xataa si fiican inaan looga arkeynin waa arkaa aniga xataa laakiin si live hadii loo arko wallahi inay caadi ahayn inaan ku dhaa insha Allah brove ay la soo socodsiiyo waxaan rajeynayaa run ahaantii inaa broveysiin sidaan oo ku wadaaya ani doorshada waxaan ku qaboojiyaa geedkaneeti oo saxanka loo moodo oo wareegsanayo si macnaha oo hadhowti aanu u dhididin oo kaleente yani si oo fudeed ay ugu macnaha ay ugu qabowdo doorshada markaasaan siday u jilcan tahay runaanta hadii la taabto soft fish waaye soft fish waxaa laga wadaa jileec waaye bush waaye doorshada waarkaysaan qaybta cadaanka waxaa dhexgala qaybta oo shukulaatadana xoogaa waxaa dhexgala qaybta cadaanka qofka saxankaan haysto aniga camalna maanta dhan waa wareejinaya waa ku dheedheelayaa runaantii waxaan rajeynayaa inaad suubi doontiin insha Allah khayr iyo caafimaad iska ognahay waa inuu fiidiyoga dambe